shirkadda duulimaadyada diyaaradaha ee Fly Dubai oo sanadihii u dambeeyayba duulimaadyadeeda ka waday Somaliland ayaa xarunteedii ugu weyneed ay ku leedahay Somaliland ka furatay magaalada Hargeysa. xarunta shirkaddan laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta oo laga furay dhismaha Deera Mall ee bartamaha caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxaa si rasmi ah xadhiga uga jaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista iyo hawada Somaliland oo ay weheliyaan ku-xigeenka madaxa guud ee arrimaha ganacsiga ee shirkadda Fly Dubai. gudoomiyaha shirkadda Fly Dubai ee Somaliland madaxa suuqeynta shirkadda iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Cigaal. munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka xarunta shirkaddan Fly Dubai waxaa hadallo ka jeediyay mas'uuliyiinta shirkaddaasi oo ay ka mid yihiin madaxa suuqeynta shirkadda Fly Dubai ee Somaliland Cadnaan Cabdiraxmaan Yaasiin, gudoomiyaha Fly Dubai ee Somaliland Cumar Siciid Ducaale iyo ku-xigeenka madaxa guud ee arrimaha ganacsiga ee shirkadda Fly Dubai ee qaaradda Afrika. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارته سوتيمي دليرة يو كاستمر يو كاستمر دتك نوعي مودن عاد بمحسنتين كسوق قيب قالك أنا قلا سوق قيب قشين حفلة فريتانكا فلاي دبي إن هذا قلا سوق قيب قشين عاد بمحسنتين هل كان وحنو اليوم كلمة مهنقة عاد بمحسنتين. About 2 years back, on the 9th of June 2015, we launched 4 flights a week into Somaliland. laba sano kadib sagaalkii bishii Juun sanadkii 2015 markaasoo duulimaadyadii ugu horeeyay aanu ka bilaabnay Somaliland waxaanu dareemaynaa ama aanu aaminsanahay in dalkan quruxda badan aanu ku xidhnay dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo aanu noqonay shirkaddii diyaaradeed ee ugu horeysay ee ka soo degtay Somaliland isla markaana aanu rakaabka siinay fursad ay kula xidhiidhaan 130 diyaaradood oo ka howlgala magaalada Dubai. ujeedadayadu waa in aanu dadka u fududeyno tegitaanka waddanka Imaaraadka Carabta oo mararka qaar haddii ay rabaanna ay uga sii gudbi karaan dalalka kale ee dunida. wasiir ku-xigeenka duulista iyo hawada Somaliland oo munaasabadda hadal ka jeediyay waxa uu si weyn u soo dhaweeyay shirkaddan Fly Dubai oo uu sheegay in wax weyn ay ku soo kordhisay Somaliland. Fly Dubai waa international flight weeye waxyaalaha u baahannahay inaan waddanka ku soo kordhino si ay ugu shaqeeyaan bulshada Somaliland isku xidhka adduunka oo dhan. aad baan ugu mahadnaqayaa xafiiskan weyn ee quruxda badan leh ee maanta noo fureen. waxaan ka rajaynayaa in ay bulshada Somaliland meel kasta ay joogaan ay shaqo fiican uga qaban doonaan. dhinaca kale shirkaddani waxa ay mas'uuliyiinta garoonka diyaaradaha Cigaal ku wareejisay 4 tan oo ah shidaalka loo adeegsado baabuurta damdamiska waxaana munaasabadda hadallo kooban ka jeediyay mas'uuliyiinta shirkadda oo sheegay in qalabkan ay kaga qayb qaadan doonaan hawl maalmeedka uu qabto madaarka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa. maanta halkan Cigaal International Airport waxaan u joognaa shirkadda Fly Dubai oo ku wareejinaysa maamulka airportka iyo wasaaradda xumbada dabka lagu damiyo oo halkan ku aragtaan cadadkeedu yahay ilaa 4 tan oo ah inta diyaaradaha hal diyaarad baqtiin karta. shirkadda Fly Dubai oo duulimaadkeedii ugu horeysay ku timi Somaliland horaantii bisha June ee sanadkii 2015 waxay noqonaysaa midii ugu horeysay shirkadaha duulimaadyada diyaaradaha ee ka baxsan qaaradda Afrika oo shaqo ka bilaaba Somaliland. nuuruddin cabdullaahi culujoog Saab TV Hargeysa.